ay qabanayaan dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo afkaarta siyaasadeed ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ficilada uu ku dhaqaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. ilaa iyo 3 goobood oo kala duwan ayay mucaaradku asteeyeen oo ka kala tirsan degmooyinka Warta Nabadda, Hodan iyo degmada Daynile. ujeedooyinka waxay tahay in la diido siyaasadda dhulboobka ah oo dowladda lagu eedeeyay. dowladda federaalka uu hogaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowr goobood oo kala duwan oo ahaa dhulkii dowladda ee danta guud waxay ka barakaciyeen dadkii halkaasi ku sugnaa, waxaana gacanta loo geliyay ganacsato jeebweyn ah oo la sheegay dowladda in ay si hoose qandaraasya uga helaan, halka meelaha qaarna ay arrintan dhalisay inay xiisadda aad u sii kululaato. arrinta la xiriirta suuqa Siinaay iyo waliba qaybo ka mid ah degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa xiisadda sii kululeeyay, iyadoo meelo ka mid ah degmada Hodanna horey loogu dagaalamay oo ay sababeen qasaarooyin dhimasho iyo dhaawacba leh markay ciidamada dowladdu ay wajaheen daddiidana dhulkaasi in laga barakiciyo. madaxweyne Xasan Sheekh oo hadda u muuqato xaaladdu inay aad ugu adag tahay ayaa ergooyin isugu jira siyaasiyiin ku hayb ah iyo waliba ganacsato kala duwan u diray mucaaradka si xiisadan loo dejiyo. laakiin dhowr kulan oo kala duwan oo la galay waxay u muuqataa mucaaradka inay ka gelgasheen oo ay diideen dibadbaxyadan inay baajiyaan, isla markaana ay doonayaan maalinta berriya inay muujiyaan quwad ballaaran iyo cudud diidma ah oo dowladda looga soo horjeedo. madaxweyne Xasan Sheekh oo hadda ku sugan dalka Mareykanka waxa uu wajahayaa culayskii ugu adkaa ee siyaasadda iyo waliba kacdoonno kala duwan, iyadoo in muddaaba shacabku ay diidanaayeen sida ay wax u soconayeen. ganacsato kala duwan oo dowladdu ay dhulalka siisay ayaa qudhooda caawa la sheegayaa inay wajahayaan culaysyada ugu adag. maxay tahay sababta dowladda ay u diidan tahay dibadbaxyadan? inta ugu badan shacabka mudaharaadyadaan ka qayb galaya ayaa u badnaa dadkii laga saaray dhulalkii ay ku ganacsanayeen iyo kuwii ay deganaayeenba. haddiise la oggolaado dibadbaxyadan, waxaa suuragala dadka inay dib ugu laabtaan deegaanada oo ay ciidamada dowladda dib ugu adkaato in halkaasi laga saaro bulshadaasi. haddii ay taasi dhacdo, dowladda looga awood roonaadana deegaanadii kala duwanaa ee dadka horey looga saaray ayaa waxay muuqanaysaa arrintan inay dib ugu soo laaban karaan. ganacsatada oo arrintan ka walwalaysana waxay dowladda ku qalqaalinayaan in is-hortaag lagu sameeyo dibadbaxyada mucaaradku ay abaabulayaan. arrintii ka dhacday 2 maalin ka hor magaalada Muqdisho ayaa dhalisay xiisad adag, iyadoo mucaaradka la weeraray isla markaana qaarkood la sheegay inay halis weyn galeen. dowladda federaalka ee Soomaaliya 24 saac ee la soo dhaafay odayaal dhaqameed kala duwan ayay ka xireen caasimadda. xalay siyaasiyiin, ganacsato iyo oday dhaqameed caan ah ayay ku xireen magaalada Muqdisho, hase haatee culaysyo badan kadib dib ayaa loo sii daayay. laakiin caawa ayay degmada Kaaraan hotel ku yaala ka xireen ilaa iyo 10 oday dhaqameed oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ku hayba. arrintan Shariif Sheekh Axmed oo ka hadla waxa uu ku tilmaamay inay tahay caburin aan geel loogu soo gaban, halisna ku ah xorriyadda hadalka iyo cabirka fikirka. waxaana uu sidoo kale qeexay in naftiisa ay gashay qatar weyn. fariinta uu madaxweyne hore ku dirayo in qatar la geliyay oo la qaarijin karay waa mid xiisadda sii cuslaynaysa, waxaana ay gaartay meeshii ugu sarraysay. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka mid ah dadka dibadbaxyadan horboodaya waxa uu tilmaamay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho maalmo ka hor inay ahaayeen kuwa la doonaya in lagu qaarijiyo. dowladda qudheeda wasiirada xukuumadda dan qaran ayaa iibinaya afkaaro u muuqanaya xaaladda inay aad u sii kicinayaan. wasiiradaasi waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi oo lahjadii ugu adkayd ku weeraraya mucaaradka, xitaa uu su'aal geliyay aqliyadda mucaaradka iyo hogaamiyaal hore qaranka u soo maamulay. arrintanse marka la eego sida dadka uga falcelinayaan, waxa wasiirka uu kala kulmay mucaarado ballaaran. waxaana loo arkaa in uu kala qaybin samaynayo, isla markaana mucaaradka uu si dadban ugu kicinayo dowladda. dadka qaar oo khubarada ah waxay ku fasirayaan hannaankay wax u qorayaan xubno ka mid ah wasiirada inay tahay in mucaaradka ay sii shidaaliyaan sida madaxweyne Xasan Sheekh
uu gacan ka hadal u sameeyo isla markaana looga wareejiyo maamulka doorashooyinka halkaas oo ay tahay meesha mucaaradku ay u qalqaalinayaan madaxweyne xasan sheekh dowladda federaalka ee Soomaaliya oo horey u dareemaysa xasilooni darro siyaasadeed maadaama maamul goboleedyada qaar iyo dowladdu ay kala furteen isla markaana siyaasiyiinta kala duwan ee dowladda ay si weyn uga soo horjeedaan baarlamankii labada aqalna aanu weli furmin haddana xiisadan waxay abuuraysaa jiha cusub oo siyaasadeed waxaana suuragal ah in arrintan maalmaha soo socda ay isbeddello waaweyn ay keenaan ergooyinka uu diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay ka mid yihiin ganacsato dowladda bahwadaag la ahaa iyo siyaasiyiin ku dhawaa madaxweyne xasan waxay isku dayaan mucaaradka inay ka joojiyaan dibadbaxyada laakiin waxa loo arkaa haddii taasi lagu qanciyo mucaaradka ay dib ugu laabtaan wada hadallada in awoodooda iyo saameyntooda siyaasadda iyo weliba galaangalka dadka ay u leeyihiin ay hoos u dhici karayso mucaaradka waxaa hor yaalla siday uga jawaabi lahaayeen hal su'aal oo ku saabsan hanaanka ay ku hanan karaan taageero bulsho oo ballaaran oo ah awoodda keliya ay ku loolami karaan siyaasiyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxaa hor yaalla xakameyn ballaaran oo ku aadan sida ay arrintan ula macaamilaan wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa tilmaamaya in laamaha amnigu ay ka fakarayaan saacadaha soo socda wadooyin badan oo muhiim ah oo halbowle ah oo mucaaradka berri ay mari karaan in caawa la xiro si guud ahaanba looga hortago dhaqdhaqaaqyadan haddii ay tani dhacdo waxaa dib loo xasuusanayaa mudaharaadyadii uu